fariinta halkan ka gudbinaya waxa weeye marka hore waxaan u mahadnaqayaa qolada academic iyo xafiiska student affairs iyo public relations oo shaqo weyn qabtay semesterkan waxay gacanta ku hayeen labada xafiisba oo midna uu gudoomiye u yahay xaamud ka kalena uu gudoomiye u yahay barafsdeeriye waxay gacanta ku hayeen boolisiyadii la develop gareynayay reportka isoo gaaray xafiiskayga soo gaaray qaarkoodna waa la ansixiyay qaarna waxay sugayaan in la ansixiyo semesterka soo socda hadii la haydmo shaqada culays kale labada teamna ma wuxuu shirayay oo is arkayeen maalin wal oo salaasa ah oo qolada academic affairska qolada kale student affairs and public relations kuna maalin kasta oo arbaca ah ayay shirayeen qoladeena college of health science maalin kasta oo axada ayaa shir lahaayeen teamka yaga dhaxana labada weekba maalinta isniinta labadii weekba maalin oo ah maalinta isniinta baanu kulmaynay shaqa la qabanayay intaas wax badan baa ka soo baxay reportkii soo gaaray boolisiyadii qaarna waa la ansixiyay qaarna waxay isugayaan in la saxiiyo hadii la haydmo semesterka soo socda waxaan rajaynayaa in wixii nagu dhiman aynu iska dhamaystirno oo siyaasadahan waxay sheegayaan waa sidaan u wada shaqayn lahayn qofka xafiiskan jooga protection buu yihiin oo ilaalinaysa isagana waxay sheegayaan wixii laga rabay ay policy ama siyaasadani wixii laga rabay inuu qabto semesterka uu qabto ama sanadka uu qabto ayaa siyaasadda ku yaala ardaygii waxa ugu yaala wixii sidii loo imtixaamayay sidii wax loogu dhigay qofka u dhigaya siduu eeg yahay qalabka wax loogu dhigaya sida yihiin waqtiga wax loo dhigaya timeka maalintiiba inta uu qaadanayo wax badan baa markaa siyaasadihii ku jira waxaan walaalayaal idinku gubaabinaya anigoo idinka mahadnaqaya sidii wanaagsanayd ee aynu u soo wada shaqaynay semesterka in wixii inagu dhiman aynu dhamaystirno semesterka soo socda waxaan idin leeyahay nasasho wanaagsan muddada bisha ah la soo nasto si iyagoo dardar qaba ay shaqada ugu soo noqdaan oo wixii noo dhinaa ay u dhamaystiraan ardayda sidoo kale waxaan u rajaynayaa fasax wanaagsan waad soo tabacdeen 4 bilood iyo badh shaqo culus oo hawlo culus leedin saaray ayaad ku soo jirteen imtixaanadii ayaad dhamaysateen waxaan idin rajaynayaa inaad si wanaagsan u gudubtaan insha Allah ilaahay idinkii inaad soo nasataan tayada dhankayaga diyaar bay ka tahay inaan wax ka bedelo oo anaga gacanta ku hayna idinkuna inaad ka muuqataan dalka iyo dalalka kaleba inaad ka muuqataan oo sida ardaydii hore ay naga tagtay ama dibadaha tagtay Ingiriiska Mareykanka Canada ee waxbarashada ka wada iyo Masar iyo meelaha in aad noqotaan arday meesha ay tagaan ka muuqda ayaan idin rajaynayaa walaalayaal diyaar baanu idin nahay idinkuna soo diyaar garooba soo nasta haddana 4 bilood iyo barka dambe ee soo socda u diyaar garooba shaqo culus hadii ilaahay idmo khayr baan idin rajaynayaa